qisada filimka The Italian Job wuxuu filimku bilaamayaa John uu gadayo silis dahab ah inantiisa Stella. wuxuu wacaya Stella waxaana ugu waramayaa inuu u soo gaday shay qurux badan. waxay ku dhahaysaa urtiisu miyay udgoon tahay. wuxuu ku yidhi may se waa qaali. waxay ku tidhi miyaad soo xaday sidaadii. wuxuu ku yidhi dukaanka ayaan kaga soo gaday waanaan kuu soo diray. waxaanay u sheegtay inuu u soo qaado say wada casheeyaan, laakiin waxa uga waramay inuu Talyaaniga joogo ayna u taalo shaqo muhiimi. waxay fahantay Stella inuu aabaheed u tagay Talyaaniga si uu wax u soo xado, balse waxa uu sheegay inuu yahay howlgalkii xatooyo ee u dambeeyay. waanu jaray. kadib John wuxuu la kulmay saaxiibkii Charlie ahna geesigiisa. waxaanay la kulmayaan kooxda inteeda kale. waxaanu doon la koray Lyle, Lefty iyo Rob, laakiin Steve wuxuu joogay goobtii xatooyada. waxay ujeedadiisu ahayd inuu xado qasnada dahabka oo qiimaheedu yahay $530 milyan. qasnaduna waxay taallaa dabaqa labaad oo leh ilaalo adag. waxay doontii soo gaadhay meeshii. Steve wuxuu galay dabaqii labaad, Leftyna wuxuu joogay dabaqa koowaad. waxay qarxiyeen saqafkii qasnadu ku hoos jirtay. kadib waa uu qarxay saqafkii waanay soo dhacday qasnadii, waxaanay ku dhacday doontii. si toosa way la ordeen doontii, laakiin qasnada dhabta waxay taallay dabaqa agtiisa, halkaasoo ay ku soo dhacday biyaha hoostooda. maxaa yeelay way cuslayd. hadday ku dhacdo doontana way qarqoomin lahayd. waxay isku dayeen John iyo Charlie inay biyaha hoostooda ku furaan qasnada, halka Rob uu waday doontii si uu uga fogeeyo ilaalada. waxaa goobtii yimi booliiskii si ay howlgalka xatooyo u baadhaan, halka John iyo Charlie si guula ay ku keeneen qasnadii. waxay u xafladaysteen kooxdii guushooda, laakiin gaadhi burcada ayaa ku joojiyay dariiqa. waxaa caddaatay inuu Steve qorsheeyey inuu keligii qaato dahabka oo dhan, waxaana xabad ku dhuftay John markii uu rabay inuu xabadaha ku furo inta kale. Rob ayuu badda kula dhacay gaadhigii. Charlie wuxuu isticmaalay oksijiintii ku jirtay gaadhiga si uu u neefsado. Steve-na wuu iskaga tegay meeshii markii uu maleeyay inuu dhammaantood dilay. sanad kadib waxaynu aragnay Stella oo u furaysa qasnada sidii aabaheed, laakiin umay furmin xatooyada darteed. waxay booliiska kala shaqaynaysay muddo dheer sidii loo furi lahaa qasnada si ay uga helaan wax yar oo caddayna oo ka caawinaysa xaqiijinta falka. kadib Stella waxay tagtay dukaanka qasnadaha lagu gado. waxay halkaa ku aragtay Charlie oo ku sugaya. way qaribsatay maxaa yeelay hore ayay ugu sheegtay inaanay rabin inay aragto. wuxuu u sheegay Charlie inuu garanayo goobta Steve iyo goobta dahablaha ay ka iibiyaan. waxaanu u sheegay inuu Steve soo gatay qasnad horumarsan si uu u qariyo dahabka. taasina waa tay naga caawinaysaa inaynu qasnada furno. kadib way diiday caawimadiisii, waxaana u sheegtay in ay ka shaqayso furista qasnadaha balse aanay xadin. waxa uu sheegay Charlie in aanu rabin inuu dahab soo xado, laakiin uu rabo inuu u argudo John. markii uu intaas u sheegay waxay ka codsatay inuu iska tago isagoon waxba ku soo celin. markii ay gurigii ku soo noqotay waxay wax badan ka fikirtay aabaheed, waxaanay go'aansatay inay ku caawiso aargoosiga. kadib waxay wacday Charlie waanay ku waafaqday. waqti kadib waxay la kulantay Charlie si uu kooxda u baro. waxaa yimi Lyle, waa aqoonyahanka elektarooniga iyo mootooyinka dabka. kadibna waxaa yimi Lefty, amiirka qaraxa kaasoo qarxiyey albaabkii iskuulka markii uu 10 jir ahaa. waxaanu beelay dhegtiisa midig. ka saddexaadna waa Rob, waa darawal hore kaasoo xidhay lambar waaliya xilli ay baacsanayeen ciidamada Los Angeles. ka afraadna waa Charlie kaasoo qorshayn jiray xatooyada markuu yaraa, waana ka qorsheeyey xatooyadan. waxay bilaabeen basaasida guriga Steve si ay u soo ogaadaan nidaamka ilaalada iyo ammaanka loo dejiyey si guriga loo ilaaliyo. waxay ku fikireen inuu qof kale guriga si uu gudaha uga soo sawiro. waxay jareen xasawdii TV-ga si ay ula xidhiidhaan shirkadda cilad saarista
maxaa yeelay Steve waxa uu aaminsan yahay inuu dilay dhammaan kooxdii. Waxay u direen Stella inay soo sawirto gudaha guriga. Ugu horreyntii waxaa tegay Rob si uu soo barto mid ka mid ah gabdhaha ka shaqaynaysa shirkadda cilad saarista, waxaana ku qarciyay inay guriga u raacdo si ay wax ugu soo hagaajiso. Maalintii xigtay markii gabadhii huruday, waxuu qaatay beer ka mid ah furayaashii gaadhiga, kadibna waxuu qaatay direyskii gabadha waxaanu siiyey Stella. Waxa uu kala bedelay Lefty TV-gii Steve, waxaanu u xawilay dhammaan wicitaanadii u iman lahaa Steve moobilkooda. Markuu Steve wacay shirkadda cilad saarista, iyaga ayaa u jawaabay. Waxa uu Charlie ku rakibay kaamirada qarsoon direyska Stella, waxaanu ka dalbaday inay isku daydo xadiditaanka goobta qasnada. Waxay Stella ku gashay gurigii guul. Markii uu arkay Steve waa uu ka helay. Isla markiiba waxay heshay Stella goobtii qasnada waana sawirtay. Kadib Lefty waxa uu hagaajiyay TV-gii. Markii ay dhamaysay hawshii, waa uu la tacajabay Steve, waxaanu ka dalbaday Steve inay meel isla baxaan si ay isu soo bartaan. Ugu horreyntii way diiday, iyadoo xujo uga dhigaysa inaanay aqoon u lahayn, lamana bixi karto qof ay daqiiqado ka hor isbarteen. Balse waxay ku waafaqday rajada inuu ka caawiyo kooxda inay guriga soo galaan markay dibadda joogaan. Waxuu Lyle ku sawiray gurigii kombiyuutarkiisa intii Stella goobta ku sugnayd. Markii ay ogaadeen in aanay qasnada ka soo saari karin halkeeda, waxay go'aansadeen inay guriga soo geliyaan gaadhiga Mini Cooper maxaa yeelay xajmigiisu waa mid yar, waxaana suuragal ah inuu maro dariiqa geynayo qasnada. Waxay ku tababarteen habkii ay gaadhiga ku soo gelin lahaayeen guriga, waxaanay kaashadeen Beebresh oo ah injineerka baabuurta. waxa uu diyaarinayaa gaadhiga Mini Cooper kana dhigayaa mid qaadi kara alaab aad u culus kuna dhaqaaqi kara xawaaro sare. Lyle waxa uu jabsaday ishaarooyinkii wadda marista si uu awoodo inuu u maamulo si ay si dhaqso leh u dhaafaan. Steve miyaa waxa uu tagay ninkii dahablaha ahaa kaasoo dahabka ka iibin jiray. waa uu la murmay dahablihii markii uu maqlay in dahabka laga soo xaday magaalada Venezia. ugu horreyntii waxa uu hubiyey in dahabluhu cid kale u sheegay mowduuca. markii uu hubiyey in aanu cid kale u sheegin ayuu dilay. waxa yimi waqtiga nin u dhowaa dahablaha, waxaanu arkay meydkiisii. waxaa nin kala dhahaa Meshkov, waana hogaamiyaha budhcadda Ukraine. waxuu baadhay dilaaga si uu uga argoosto. waxa la gaadhay maalintii Stella la kulmaysay Steve, laakiin markii kooxdii u soo baxeen si ay dahabka u soo xadaan, waxay arkeen jaarkoodii oo qabanaya xaflad ballaadhan. waxaanay hakiyeen howlgalkii, laakiin Stella waxay rabtay inay u baxdo ballantii ay la lahayd Steve si ay u fuliyaan kooxdu qorshaha. intii ay wada fadhiyeen, waxa uu Steve ka dalbaday inay ku kalsoonaato. waxay u sheegtay inay dhammaantood ku kalsoon tahay, laakiin aanay ku kalsoonayn shayaadiinta joogta gudahooda. waana weedhii uu markasta dhihi jiray John. kadib waxa uu ogaaday arrinta Stella, waxaanu ogaaday inuu aabaheed ahaa. waxaanu ugu warramay inuu Steve aabaheed aad u jeclaa ilaa maalintii la dilay. sikadiisa way xanaaqday Stella, waxaana soo galay Rob iyo Charlie. waa uu naxay Steve markii uu hortiisa ku arkay kuwii uu haystay inay dhinteen oo hortooda jooga. Charlie waxa uu la fadhiistay Steve, Robna waxa uu Stella geeyey meel fog. waxa uu Steve u sheegay Charlie inuu qorshahoodu fashilmay oo uu dahabkii iibiyey, waxaana hadhay 2 jag oo keliyaata. aad ayuu ku jeesteesay Charlie ilaa uu xanaaqay oo uu ku dhuftay Fred kaasoo ku riday dhulka. intii aanu tegin, waxa uu sheegay inuu mar u soo aargudi doono John, waqtiguba ha dheeraade. maalintii xigtay waxay ogaadeen inay Steve baabuur badan dhigay guriga hortiisa iyo Eric Clapton. waxa uu ogaaday Charlie in baabuurta mid ka mid ah uu raaci doono Steve. waxay bedeleen qorshihii. waxay go'aansadeen inay dariiqa ku xadaan dahabka. waxuu qorshuhu yahay inay marka hore xadidaan gaadhiga sida dahabka. kadib Lyle waxa uu wajahayaa dhanka waddada hoosteeda si uu u maamulo ishaarooyinka wadda marista. kadib waxay qarxinayaan saqafka waddada hoosteeda si uu baabuurku
ugu soo dhaco waxaanay xadayaan dahabka. waxay bilaabeen qorshihii waxaana xadideen gaadhiga dahabka sida iyagoo eegaya xajmiga uu baabuurku kor uga kacsan yahay dhulka. kadib waxaanay afis u geliyeen baabuurtii iyagoo ku ciyaaraya ishaarooyinka wadamarista. waxauu baabuurkii maray dariiqii ay u diyaariyeen. kadib waxay qarxiyeen dariiqii si ay u soo ridaan baabuurka waana dabayleen qodkii qaraxa si aanu Steve uga arag helikabtarta uu saaran yahay. kadib Stella waxay furtay qasnadii waxaana qaateen dahabkii waana ka ordeen goobtii. Steve wuxuu waryaday Charlie si uu u dilo laakiin Charlie wuxuu khalkhaliyay helikabtartii. kadib waxay baabuurkii geliyeen tareen uu ka caawiyay saaxiibkood oo ahaa injineerka baabuurta. waqtigaa Steve dusha ayuu kala socday waxaanu ogaaday inuu yahay injineerku shaqaalaha goobta. waxaanu isku dayay inuu siiyo laaluush si uga caawiyo inuu galo baabuurka. Steve wuxuu qaatay inuu guulaystay laakiin waxaa joojiyay Charlie kaasoo uu hore ugu jeesjeesay. waxauu la soo baxay hubkiisii si uu dilo laakiin waxaa soo galay burcadkii Meshkov ee reer Ukraine. waxaana caddaatay markii uu Meshkov ogaaday dilaaga waxauu ogeysiiyey Charlie kaasoo ka dalbaday inuu Steve usoo gacan geliyo markaana uu siinayo kala badh dahabka. waqtiga waxaa soo muuqatay Stella taasoo qaracday Steve si daran iyadoo u argudaysa aabaheed. ugu dambeyntii waxay qaybsadeen wixii ay haysteen. Meshkovna waxa uu ka haystay Steve si uu shaqo uga qabto.